السلام عليكم dad halkan waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed oo nadiifka ah oo sharafta leh oo qiimaha leh oo wadankooda jecel oo dhulkooda jecel oo u dagaalamaya oo difaacanaya oo xanuunsanaya oo dadka fiican yaqaano oo dadka xun yaqaano oo dadka dhibaya yaqaano waxa dadka caqliga u saaxiiba oo wax xun kala saari kara wax fiican yaqaana anigu dadkaasaan la hadlaya qof kale anigu la hadli maayo dadkaas anigu waxaan leeyahay ma waxaad u malaynaysiin dadkan raba waddankeena inay burburiyaan asxaan inay idiin sameynayaan ma waxaad u malaynaysiin dadkan barwaaqo iyo bash iyo inay idin gaarsiinayaan ma waxaad u malaynaysiin dadkan xareed meel jeefta inay cab idin leeyihiin war dadkani ilmihiinay barakacinayaan iskuulladiinay duminayaan intii yar oo hadda noo iftiintay dab yar markaad shidato lagaa dumiyo waa halkii kasoo bilaab intaasaa rafaadsanayn intaasaa qoloba qolo gacanta noo gelinaysay intaasay isku kaana wareejinayeen marka sidii fooxii qofba qofa loo dhiibayay intaasay isku kaana dirayeen war dad yahow gaar ahaan dadka muqdisho deganow war caqligeena ka shaqeeya war dhegihiina fura war indhihiina fura war dadkan gaalada u shaqaynaya oo kenyaata u shaqaynaya oo waddankanaga waxay rabaan gacantooda intay ku qaadaan inay gacantaa shisheeyaha saa ugu ridaan war ma caqligaad la-adihiin war waddankeena maxaa u difaaca la-adihiin war aawid shacabkii aawi culimmadii maba hadlayaanba indhahay ka fiirsanayaan farmaajo war farmaajo waa nin shaqsiya shalay toole waa yimid nasiibkaa keenay beritan wuu iska tegayaa meeshan cid ku waaraysa ma jirto xilkaan cidna kuma waarto cidna ma joogto laakiin maalinba qofka yimaada wax unbaa lagala haraa waxbaa lagala haraa qofka joogo maanta qofkani muxuu kuu soo kordhiyey saacad walbo dadka qofka madaxda meesha joogo waa xisaabiyey sanad kasta bil kasta xisaab ayaa ku socota muxuu wadanku u qabtay muxuu soo kordhiyey muxuu sameeyey muxuu hayaa muxuu ka tegay muxuu soo wadaa laakiin adduunka halkaad ku socotaan ma ogidin halkaad u dambaysaan ma ogidin hore laydiin burburiyey qabiil waddankaa loo burburiya isagoo dhisan oo qurux badan oo wax kasta leh hadda markaad ifteenkii yar usoo baxdeen baa waxaa la rabaa haddana dib idin laydiin celiyo oo loo dhaho aha iftiin ma jire dee mugdigii kusii noqo caqligaad laadihiin mar ma qabiila idin qaaday war qabiil maxuu idin taraya war ma qabiil ma qaranuu dhisaa war qabiil ma dowladou qabtaa war ma qabiil ma ciidanoo wax siiyaa war qabiil muxuu qabtaa war qabiil muxuu qabtaa haddaad 10 qabiil isku dabaritiin muxuu qabtaa qabiil war qabiil wax ma qabto war walaalayaalow qadka qabiilka ka soo baxa ee qarannimada soo aada war ilaahay ka cabsada war qabiil waxaad iin tari maayo war waxaad ilowdeen maantay qof markay dhimato waad aragteen meesha yar oo saa loo dhigaayo xisaabta ayaa iskale dadkaad u qaraabi jirtood u qabiilayn jirto kulama socota maantay adiga waa keliga just yourself adiga nafsadaada keliya cidna kulama socoto cid wax lagula weydiin maayo adiga maxaad soo qabsatay maxaad lahaa jirtay maxaad wadatay maxaad shar iyo khayr maanta waxaa la timid marka qabiilka aad u cararaysiin waa sidaas waa ninaan hal daqiiqa aan waqti ku siinaynin oo godkaa yar kula gelinin marka maantay waa aad nooshiin ninkii wax xumaan samaynayo godkaa yar ogow kaliga nin la waarayana adduunkan ma jirto waqtigay doontana ha ahaato laakiin waxaad ogaataa maanta waxaad qasi sidoo qarbudaysid maalin lagu weydii doono xoolaha aad dadka islaameed aad ka soo qaadateen laaluushka aad soo qaadateena adinka idin taalla halkaad ku soo qaadateen iyo halkaad ku bixinaysaan iyo waxaa ku gudaysaan xoolo islaameed iyo xoolo soomaaliyeed kuma gudaysiin waddanka soomaaliyana kuma bixinaysiin marka dadka qaada cadiriiqyada oo waddankanagii nabad u diidan oo hortiisa taagan oo saa liq nagu ah ilaahay horta balaayo liq allah ku siiyo dadkaas ilaahay hanaga qabto ilaahay hanaga qaban kara cid kaloo horta qaban kartaaba laakiin haddana dadka hadday tashadaan horumarkii aan soo gaarnay iyo dadnimadii aan hore usoo lahaynba annagaa keensanay cid noo keenta ma jirin mogta iyadoo saana lagu hortaagayaan keensanay ha iloobinina taasna waa inaad keensan kartiin wax kasta aa qaban kartiin wax kasta aa heli kartiin dadka markaa haddaa idinka daciif iska dhigtiin oo dhahdiin annaga halkaan taagannahay maanta kama dhaqaaqayno bartaan ayaan joogaynaa ninkii hadlaba waa qabiilkayga saasuu yiri hal raac war qabiilka dan horta ma kuu wada adig muxuu kuu qabanayaa qabiil qaran waxaad ku kasa qabiil maa ku helaysaa war waddankeenu istaaga war cadowgan dugaag waxaa la yiri ya
dawaca u yaro libaxna waa u weeyahay mataqaana waa wadan saa lagu soo jihiyey cid walbaa lagu soo diray cid walbaa lagu soo kaxeeyey yaa cid walba cayayaana saa loogu soo kiciyey wallaahi intaa yar waxaa ka filan oo ka adkaan kara adinkoo u midooba wadankiina oo hore u istaaga oo ilaahay ka cabsada oo dhaqankiina ilaaliya oo diintiina ilaaliya oo sharcigiina ilaaliya oo kala dambeyntiina ilaaliya oo qabiil iska ilooba warkaas haalintaas horumar ayaad gaaraysaan war ilaahay ka baqa war ilaahay ka cabsada war wadankiina dadkan mufsidin waay dadkan wadankay fasaad dadkanna faasidinaa nagu sii daynina war meel uga soo wada jeedna walaa rooble walaa ruufyaan walaa mid hore soo xukumi jiray walaa wax kale mid hadda cusuboo jooga wax allaala waxa la wadankiina hore aan u wadaynin waa inaad mid ka noqotaan waayo wadamo shay ugu garbeynaysaanoo wadankiina ugu dayacaysaan war dadkan culamaa diinka odayaasha dadkan yaryaroo masaakiinta caruuraha iyo dadkani ha kacaan war wadankan ha loo istaago wallaahi afka wahiilu galaa maanta aniga halkan maanta waxaan uga hadlayaa waxaan awooda male laakiin afkaygaan awoodaa afkayga waa inaan ku xiilbaxaa ciddaan ugu hilinayana waa inaan ugu hiliyaa sida waxay yihiinna waa inaan ku hadlaa marka aad iyo aad aa u mahadsantihiin ilaahayna ha laga boqo ilaahay taqwadiisa idinku ogahay asalaamu calaykum